السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفرت حنون وين وكاني كرام بسباسكو أي إن شاء الله مقالة سوق قادرنا مركادتك حنوننا قبا يوم استعماليا توتالي بسباسكا لكن تدك عن قبيل قدودو ويكت حتى يطونان نقاطان بسباسكا حنونك كوباد وحنونك الله يراضها مريدك اللغة عافيمات كبر شهانا إنو نقانو بباسيرتا بواسيرتا بسباسكو وكاني كرا قابك دخاتيرتو أي تلماميان وكاني كرانا وحي تلماميان إن بسباسكو سمايا internal injuries وحلا يراهدو إنو داوعية قديد وقارسيو ملوتك مركا وداوع وقارسيو داوعاسي مركاس إنو تشيحمو وملوتكو دلاعمو كدبنا سيداس أي نبرك بواسيرتو أي كو سمايسانتو بواسيرتا gudaha ka abuuranta waa uu keeni karaa ama waa uu ka qayb qaadan karaa imaatinka bawasiirta ayay dhaqaatiirtu qayb badan ay ku tagayaan dhinaca kale waxa uu basbaasku keeni karaa xanuun la yiraahdo obesity waa cayilka buurnida yani xad dhaafka ee qofku jirkiisa uu kala tago ee uu aadka u kala tago sababta uu cayilka u keenaana waxa weeyaan basbaasku waxa uu furaa amateedka qofku cunto badan buu isticmaalaya hadduu basbaaska isticmaalo cunto badan oo xadigeedu badan yahay buu qaadanaya cuntada badanina waxay keenaysaa haddii uu ku fadhiisto oo aanu yani management wanaagsan aanu samaynin inuu markaa ku cayilo oo markaas cayilkaasina wuxuu khatar u sii galaya xanuunka macaanka waxa uu khatar u sii galaya xanuunka dhiikarka waxa uu khatar u sii galaya xanuunka cholesterol cayilku isagu sidiisaba hadii cayilkaynu ka hadlayna cayilkan buurnaanshaha maaha obesity-gu waa xanuun yani waa qofkii oo jirkiisii uu kala fogaado oo uu kala tago oo uu isku dhex daato dadka kici kari waayo weeyaan dadka laga hadlaya noocaas uu gaarsiin karaa qofka xanuunka saddexaad ee runtii isaguna weyn ee uu keeni karo waxa ka mid ah basbaasku xanuunka la yiraahdo gastritis-ka ee bulshahaan aynu naqaano gastritis-ka waxa uu keenaa basbaasku waxa uu sameeyaa in linkaha caloosha uu diiro ama uu dilaaciyo maadaama uu samayn karo in internal injuries uu keeno oo dhaawacyo gudeed uu gaarsiiyo marka caloosha uu dilaaciyo linkaha caloosha ay siidatiga caloosha ka samaysanta iyo qofku waxyaabaha ay siidal uu cunaaba way dhibi doonaan sidaas ayaa markaa nabarada calooshu ay qofka ku samaysmayaan oo saasay ku dhabayaan shay kasta oo markaa ay siid leh oo uu isticmaalo iyo ay siid caloosha labadaba hadii uu kaajoodo xanuunka afraad ee uu keeni karo waxa ka mid ah in uu ka qayb qaato xanuunka la yiraahdo qumamka ee luqadda caafimaadka loo yaqaan tonsillitis-ku waxa ay ku yimaadaan in ay bacteria iyo virus ba ay sababi karaan laakiin isagu sababta uu ka qayb qaadanaya waxa uu ku sameeyaa qaybta cunaha ama qaybta hunguriga inuu allergy ku abuuro waxaanu u daran yahay dadka qumam kale xoqadaha leh yani dadka xoqadaha leh inay isticmaalaan basbaaska waa aad iyo aad baa looga digaa wuu kicinayaa sababtu uu kicinayaana allergy buu ku abuurayaa cunaha kadibna qumamkii way kacayaan marka haddii bakteeriyadii qofka ay ka deganayd ama viruskii markaa xukuumkii uu lahaa aanay ku kacsaneen way ku kacayaan intaas ayaynu ku soo ururinaynaa muqaalkii koobnaa dadka xanuunada qabaa way iska ilaalinayaan basbaaska dadka aan lahaynina wuxuu ka qayb qaadan karaa inuu keeno oo way ka taxadarayaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.